بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالي ذا مسلمين تاعي ولا لها ميلة جوكتان با waxaan jeclahay marka hore inaan salaanta idin soo gudbiyo qaaliga marka labaad walaalayaal waxaan noo soo socday maalmahan oo dhan qormooyin kala duwan oo aan uga hadlaynay dhibaatooyinka ka jira dalkii aan u dhalanay keligay ma aha dadka Soomaalida ee caalamka ku nool ee kala duwan ee dhibaatada wadanka ku habsatay iyo masiibadaas ka hadla ama ka dhiidiya ama wax un ka dhaha walaalayaal qormooyin dhowr oo hore waxaan uga hadalnay qaabka loo qaybiyay wadankii oo loogu daneeyay in loo meel mariyo mabaadidii ay dawladda Itoobiya iyo dawladaha dariska ay kala hayeen wadanka waxaan kaloo ka soo hadalnay xaalufinta dhaqaalaha sida wadanka loo baabiinayo dhinaca dhaqaalaha waxa kaloo aan ballan qaadnay inaan ka hadalno waxbarashada iyo waliba media waxa jira qormooyin kale oo badan oo taabanaya dhinacyo badan laakiin caawa waxaan jeclaystay arrin runtii dadka dhan Soomaalida ay damiirku ku haray maanta walwal badan ku hayso oo ah xuduudaha Soomaaliya yaa lagu ogyahay Soomaaliya xuduudaheeda yaa difaaca yaa mas'uul ka ah yaa kontroolo ciddas ka soo gasha wadanka yaa soo gala yaa raba inuu isku ballaariyo oo uu qabsado wadanka si systematic ah arrimahaas iyo arrimo kale oo badan baan rabnaa caawa insha Allah haddii waqtigu noo ogolaado 20 daqiiqo soo socda inaan ag istaagno walaalahay Soomaaliyeed qaaliga ah wax badan ayaanu soo hadalnay laakiin hadda waxa la soo gaaray xilligii ficil aan ku dhaqaaqi lahayn waxa aan maalin dhaweyd ka shanqariyay anigu shakhsiyan inaan hayno cadeymo muujinaya in qaabka Soomaaliya la rabo in looga tirtiro maapka in loo qaybiyo laba waji qaabka hore waa lagu guuleystay oo ah in la kala qaybiyo dadka Soomaalida la iska horkeeno qabiil gobol tuulo oo marka la dhaxdhigo mushkilad ay adag tahay sida lagu xalliyo wadadkii Soomaaliyeedna Ilaahay uu tahluuka uga dhigay arrintaas markii wajiga lagu guuleystay waxa la bilaabay wajiga labaad oo ah in Soomaaliya lagu beero marka dad aan Soomaali ahayn waad ka warqabtaan 2005tii qofkan markaa ka ahaa madaxa ururkan lagu sheegay igar iyo naag markaa arrimaha dibadda u qaabilsanayd qaybta Afrika dawladda Mareykanka oo la dhigi jiray Chandra Fraser waan qiyaasay inay bishii Abriil 2005tii hadal ay jeedisay ayaa waxa ku jiray ma dhici doonto mana dhacayso in 8 milyanna ay haystaan badda adduunka ugu dheer iyo dhulka adduunka ugu barwaaqada badan 9 milyan ay ahaadaan bad la'aan isla markaasna ay waayaan waxay cunaan oo maalin walba gaajo loo dawariyo arrimahaas dad badan oo ku baraarugsanaa way jireen laakiin waxa nasiib darro hogaamadii isaga dambeeyay wadanka iyo kuwan hadda fadhiya wax alaale iyo waxay arrintaas maaragtay ka ogyihiin ama ay ka qabteen ama baraarugoy ummadda hoggaankeeda markay qabteen ay ka sameeyeen ma jiro bal iyagiiba waxay bilaabeen inay ku saacidaan sida arrintaas loo xaqiijin lahaa walaalayaal arrintaas wajiga labaad si loo hirgeliyo waxaa jiray marka shir ka dhacay Addis Ababa oo loo bixiyay Addis Ababa Action qofkii rabana uu internetka ka heli karo shirkaas wuxuu dhacay 13 ilaa 16 bishii July 2015 waa sanadkan aan ku jirno shirkaas waxaa la hubiyay in looga hadlayo waxa loo bixiyay resource sharing ama qaybsiga barwaaqada adduunka iyo wax la mid ah dawladda Itoobiya ujeedadii ay lahayd oo ahayd maadaama ay ka qayb gashay qaybsigii qaaradda madow ee Afrika 1884 shirkii Berlin markan waxay la timid ajenda kale iyadoo ka duulaysa hadalka hore ee naagta Chandra Fraser ay tiri 2005 waxa meesha marka la keenay maab ah in demografiga geeska Afrika la bedelo khaasatan dhulkan Soomaaliya Kenya waa 46 milyan sida la sheego sida daraadeed waxa la yiri marka in dad lagu beero hadda muhiim ma aha loomana baahna maxaa yeelay dad badan baa degan halkaas meesha marka loo baahday in bini aadan lagu beero waxay noqotay Soomaaliya geeska Afrika degan oo dhan walaalayaal waxa lagu sheegaa inay tiradoodu tahay 20 milyan 12 milyan oo jamhuuriyadda degan iyo 8 milyan oo dhulkan kale Itoobiya Kenya haystaan ku fiirsan
haddaba mashruucaas Addis Ababa Action caalamka waxaa loo tusiyey in laga hadlayo wax la yiraahdo resource sharing iyo la dagaalanka corruption laakiin waxaa jiray side meeting dhinaca kale garab socday arrintaas wanayd Ethiopia waa loo ogolaaday waxaa la rabaa marka in la soo geliyo oo wajigii hore hadda uu bilowday durba soo gelinta noocaasa 100,000 oo Ethiopian ah oo Oromo u badan qaabka loo soo gelinayana ay tahay si ayar durba way bilowdeen wayna soo buux dhaafiyeen 24 bilood oo u dambeysay daatada aan hayno waxa weeyaan ugu yaraan 30,000 ayaa la soo geliyay 24 months ugu dambeeyay walaalayaal qoladan hadda Ethiopia fadhida safaaradda Soomaalida sheeganaysa aniga iyagas maanta idin la hadlay ayaa xogta aan ka hayo dhaama meesha iska fadhiyaan maxay yahay legitimate iyo si sharci meesha kuma fadhiyaan sidaa daraaddeed qofku mar haddaanu sharciyan meesha ku fadhin wax kasta oo qalad u arko ma uu qaban karo maxaa yeelay cuqdadii waxaa ku jirta mar haddaanu meesha sharci ku fadhin inaanu waxba dhihi karin waxna qaban karin kuwan hadda xamar fadhiya iyo kuwan maamulada la sameeyay iyo kulli waa isku mid wada same mar haddaanay shacab Soomaaliyeed metelin ay naftooda kaliya matagaan meeshan ay u soo shaqo tageen danka malaha waxa hortooda dhacay haddaba xuduudihii Soomaaliya waxay noqdeen open way furan yihiin dhibaatada marka meesha jirta waxay tahay ujeedada ugu muhiimsan ee loo dan leeyahay waxa weeyaan marka waa goboladan dhexe iyo waqooyiga Soomaaliya maca asif dadkan ku dhaqan goboladaas waxaad moodaa ayagu inay isfiirsanayaan maamulo beena oo nijaasaha geedo hoostood lagu wada sameeyay hoos fadhiyaan all say u dheeyeen waxa laali wax ka jiraan male Addis Ababa marka la tagaa shaarar baa loo geliyaa waxyaabo made loo shubaa waxyaabo ay cabaan dabeedna halkaas loo soo dhibaa waraaqo waxaan arkay hadda culimadii waqooyiga oo kacday oo leh war magaalada Hargeysa bartankeedii ayaa lagu garaacayaa dadka magaalada Hargeysa u dhashay marka ka hadasho tiraadii war waxaas qof Soomaaliya waa ka damqanaya waxaan arkay qaar kule adigu waxaad u dhalatay meel fulaane kama hadli kartid wuxuusan ogeyn markii asaga la qabsadaana in la qabsaday taasuusan ogeyn uusan ninkaasi dareensanay walaalayaal dadka Soomaalida waxaa bilowday wax loo bixiyay marka New World Order waxaa la go'aansaday 100 sanaba adduunka mar in isbedel uu ka dhaco isbedelkaas waa laba nooc mid ay duruuftu keentay iyo mid la qasbay labadaba kan hadda socda wax weeyaan mid ay duruuftu keentay ma mid la qasbay waxaa la baabiyay ururkii la dhihi jiray United Nations oo ummaddu ay waxanta ku saxiixatay muslim iyo gaalaba la isku kala celinayay wax lagu kala heshiiyay sidii ururkii ka horeeyay oo ka warqabtaan League of Nations meeshuu maray ayuu ururkaasi maray maanta waxaa la go'aamiyay xuduudihii caalamku sidoodii hore inaysan ahaanin dadka lagu bilaabayo marka waxaan dadka ninku ka tabariyay dadka Soomaalida oo meesha maanta tabartoodu marayso ay tahay dawlad difaacaysa male xuduudoodii cid kontroolaysa male dadka xataa wadanka soo galay cid ay diiwaan gashiin male airportada xitaa kuwa ka soo dagaxan maqlay markay si sharci darro ku soo galaan waxoogaa laaluusha airportka laga qaataa dabadna iska sii daayay magaalada iska gala wax allaale iyo wax kontroolay cid u xisaabsan yahay male wadankaas waxa la wixii doonaa laga fushado meel ay gaar u tahayna male waa sala kala dareen mashruucaas qaybtiisa hore oo 100,000 ee qof ee ugu horeeyay Ethiopianka in lagu beero Soomaaliya waxa la rabaa in laga fuliyo goboladan hadda loo bixiyay Puntland iyo meeshan loo bixiyay Somaliland dadka dhulka degano ama meesha deganaan walaalayaal wax weeyaan waxaad ogaataan haddii idinka la idin qabsado anigana waa la qabsado qof kasto cajiladan daawanayna waa la qabsado ma ogolaan karno marka in idinka la idin qabsado qaar baa waxay leeyihiin adiga maxaa ka galay waxba iga galayo markii adiga lagu qabsado ama boora ma la qabsado adeerna waa la qabsaday taasaan ku xisaabtanayo wayna hadda difaac sii gala marka waxaan marka rabaa walaalayaal in ku baraarujiyo shirka Addis Ababa Action Aid qasadkii loo sameeyay wuxuu ahaa in mashruucaas wajigiisa labaad mar hadduu wajigiisii koowaad hirgalay oo Soomaaliya loo qaybiyay qaabka noocaasa ee mid walba xuduud Ethiopia inuu la yeesho dekadna yeesho loona dhiibta nin nijaaso dayuusa mashruuca markii lagu guuleystay oo baarlamaankii iyo waxaan la sheegay wixii dhan ay iska noqdeen dad iska korruptir oo qolal isaga xareysan oo isaga qayb waxyaabaha cajiibka ah dadka Soomaalida la yaabeen waxa weeye ninka wasiirka arrimaha yani dhaqaalaha iyo gudaha waxa ma aqaan Kenya markuu qaadka ka hadlay oo ninka ra'iisul wasaaraha sheegtay inuu ag fadhiyay كل واحد داونه يسين كموها لكن نكى أنتي سفردي ديكي ساو ولا بس هو كبار وبدأ معنا سوى بريس وزارو شيء يعني مركو يري الصومالي وطلع إنه قاد كأي إسكجول جسوا يلا هاو وطلع ويا أنا كبيرها يبير لي دي أنا دفاع عنه إنه مركو كلمة داير وكري كري وينو يراد النو قلد وينو نكون نجد جسنا أنت كليو كري وين محايا لي وحقوقي هاي ماشى كوما فديا شرعيات وحقوق فديا illegitimate وسك فديا عدو مثلا ماله وحلا له وحقوق قرني ماله markaad kaas hadii siyaasad wax ka sheegtid qaar baa kula diray oo ay kuleeyeen reer fulaan baad wax ka sheegtay adeer kuwan dhibaatada adiga iyo aniga ay noo geysteen iyo ilmaha naga farcami doona waxaan ka soo waaqsan karnaa marka ku difaaceen reer iyo waxaan aad waqtiga ku dhuminaysaan billahi alaykum hadda Soomaalitiin walaalayaal
ninkii marka qaadkii markay dadkii Soomaalida qaylqayliyeen oo ay yiraahdeen war qaadkii hana la ka joojiyo oo caynkan aan arkay niman baarlamaan ka tirsan oo leh qaadka lama joojin karo maxaa yeelay islaamaha caruur ka biila mar raba inuu dhaho anaa qaylo oo meel baan ku xareysnahay anaa iska qaylaan rabaa dabeedna qaadkeena la ka joojin mar raba inuu saa dhaho mogta islaamihii masaakiinta ah oo baabi'iyay oo ilkaha ka daadiyay buu ku marmarsiyoonaya oo qurunka iyo daroogada iyo dulliga uu baday oo uu leeyahay dowlad baan u ahayn qoladan baarlamaanka meesha fadhidan 10 jeer hore aan la hadalnay waxa weeyaan aamuskiina iyo dullinimada meesha aad ku fadhidaan dambiilayaal inaad ku tihiin waa inaad qorataan hadda buuka ku xariiqay waxaad ku tihiin criminals dambiilayaal maxaa yeelay waddanka sidaa loo soo gelayo loo baabi'inayo mar qura idinkoo iscasilayo oo kan nijaasadan ka dhaxbaxayo oo idinka wada macnaheedu waxay weeyaan marka raalli baad ka tihiin qofku wuxuu raalli ku noqdana qayb buu ka yahay waad ogaataan taamar dhan baan ka hadli doonaa baarlamaankan siday u shaqeeyaan iyo cidda la keeno iyo qaabka loo keeno iyo nimankan waxaad arkayay 60kii raggii waddanka baabi'inaya oo weli meesha dhex fadhiyo markuu kacayo 2 nin baa garbaha qabanaysa muxuu meesha ka fadhiyaa yacni damiirka uu meesha ku fadhiyo qof kastoo Soomaaliya cajaladan daawanaya marka waxyaabahaas looga sheekeeyo wuu kula laboonaya xataa I believe inuu cajaladan daawan karo waxyaabahaas looga sheekeeyo waxa weeyaan walaal marka yeesan xaraaradu na tagin yani boqolkiiba boqol yeesan na tagin xaqabad baa loo baahan yahay this time mashruucaas new world order ka loo bixiyay oo xuduudihii caalamka lagu baabi'inayo lagu tirtirayo rabo xuduudo cusub in la sameeyo iyo digmographiga dadka bini'aadanka say u nool yihiin especially geeska Africa la rabo in wax looga bedelo waxa lagu go'aamiyay haddaad ogtiin haddii kale 13 July ilaa 16 July sanadka kan Addis Ababa shirki ka dhacay qoladani way qarinayaan ma oga hadday og yihiin kama hadli karaan maxaa yeelay qayb bay ka yihiin sidaa daraadeed dadka Soomaalida maxay idin la gudboon walaal ama waqooyiga galbeed degan oo Soomaaliya ama meeshan Somaliland loo bixiyay ama Puntland ama meesha doonta degan mar haddii dhulkaagii sidaa loo qaatay mar haddii lagu beerayo oo la rabo sidii Falastiin Yuhuud 70 sano kadib caruurtii Falastiin waa dhagax bay tuurayaan dadkaas dhulka markay soo galayaan ayagoo qoryo iyo hub wata walaalayaal may soo galeen waxay soo galeen ayagoo shandada wata isku sheegay shaqaale baryootama qaarkood xitaa diinta islaamka inta la soo baray la yiri marka dhulka carabta tagtaan islaam baan nahay dhaha hadda oromadan qamiisyada loo soo galiyay inta koofida loo soo galiyay masaajid iska soo buuxinaysa all of them jawaasiis kulli say u dhayn kulli all say u dhayn walaal waa jawaasiis meeshay soo galaan habeenkiina taarar iyo telefoonay ku hadlaan nin walbana kaar iyo ID baa la soo siiyay haddaad moodeen inaanan ogeyn oo la soconin waa la soconaa waan ognahay cid walba oo Soomaali oo damiir lana way ogtahay maanta waxa meesha ka socda walaalayaal marka waxa loo baahday this time mar haddii dawlad dhaxo ka celinaysa aysan jirin mar haddii ciidankaagii la diiday inuu ciidan noqdo mushaar la siin waayay oo xogaag yara u soo dhacay meelaha ka soo dhacayna nimankan ay jawaabka isaga shubteen oo askarigii la yiri shacabka baaro nin calankii halkaas ku wata oo islaamo baaranayo kula calan iyo qori baan askari baan waxyaabaha nasiib darrada ah oo Soomaaliya ka dhacday kamid tahay oo la yaabay ummadda la yaabtay walaalayaal wax weeyaan marka mar haddii qoladii mas'uuliyadda loo dhiibay ee 4 sano hadda la soo dhaafay hadda la lahaa waxbay bedeli doonaan ay meeshaas kula ku feen mas'uuliyadii mar haddii baarlamaankii la rabay inuu jeegareeyo waxan uu daba socdo ay noqdeen ido ku xareysan qolal oo dabeedna caws loo dhigo mar haddii ummadii Soomaaliyeed inta la qaybiyay la isku hor keenay madaxa la isu geliyay iyaga qabiil isu leeynayaan 91kii wixii lagu celiyay si loo qaato dhulki haddana waxaan arkay diyaarada la leeyahay macdantiiba iska guranayaan meeshan hadda la leeyahay sool iyo sanaa wax weeyaan marka ummadda Soomaaliyeed ee walaal cajaladan qofka daawanayo waxa la soo gaaray xilligii marka annagu shakhsiyan adiga daawanaya aniga iyo wixii lamid anu is abaabuli lahayn fadhiga ka kici lahayn maxaa yeelay cid aan sugayna male waxaa la rabaa sidii oo loo burburiyay League of Nations ururkii la dhihi jiray oo ururka United Nations ka horeeyay oo kala loo burburiyay United Nations kiina xeerarkii caalamku yaalo dhan waa la tirtiray xuduudihii caalamku lahaayoo dhan waa la masaxay waxaa la yiri marka wadan walbo maslaxadaadii interestkaaga meesha u aragto ku duu wata Mareykanku Ciraaq ku duulay waxaad aragtay ka sameeyay Suuriya waa aragtay caalamku dhan uu garaacay waad aragtay waxa ka socda Liibiya cid ku maqan marka adiga Soomaaliga ma jiro waxaan arkay dad badan oo leh hadal umbaad Cabdirashiid oo haysaay ficilkii waa run haddaan la hadlin baa ka sii daran haddii la iska aamuso hadda qof walba intuu gacmo asaas u laabto u yiraahdo okay waa taasaa ka sii daran please hadda maxaynu u baahanahay marka war haddaana wax kala haysan vigilantes dad vigilantes soo majeystayaal oo habeenkii soo jeedo naga waardeeya kuwan xuduudda ka soo tallaabay ilaa dawlad naga celinaysa xuduudii qofna waardeynaya walaal ma jiro secondly Soomaaliya waxaa la saaray cunaqabateyn 25 sano oo hub ah hal qori in ay soo degsato Soomaaliya ama dawladdan ku meel gaarka lagu sheegay ama maamuladan
والله بأنا الله أقولين حتى ما مولدنا لو ما أقولين قري يبقى never لو ما أقول ولا ليال دولتي درس كنا لها كين إثيوبيا كل وحالي المركب نوع دونتان سوقته ورشدها دونتان سمايستا واحد دونتان سمايست أنا جينا عنقتين بان الصاري وحالي القري مكان سكتان أسكري يجي $100 بالحلي بلاد بالقري كداير كتوتها لو سوقليي أستغنا كوني شن بقول يدع وشعب كدع يبارنا يرى والله فصل وحاسة للداونا يا مرك قلا وحي كلين دولة باجرت أو لحي طبعا كان سوقيا أو كانوا وحاسة أدير وحبة كمجرا أدير بليس سيدا حداد ربطان سومالي عجلدا نف إيغا دنبايسان ونرول إيغا سي دنبايسان حداد ربطان إن كو إيغا فرع عمي يكو إذن كفر عمي نجح أي توران سيدا فلسطين أو كالي تضباطا سنة كدمنا لتس أسكا آموسنا مركا عن نيوال بإسلامتي سواستا كقول يبستها وبالله التوفيق هدي كالي وحبان عايمين كرنا this time وحلوبة هاي especially دادك قبلada وقوي كنول iyo dadka gobolada dhexe ku nool iyo wad isgaranaysan sheekh culumadii baa kacday wad ka warqabtaan sheekh aadan siiro wuxuu daraa lahaa baawur hub wada oo cid controleysa aan jirin oo isbaarada laga sii qaaday la soo galay waxa la rabaa one day la balansaday in walba gurigiisa inta loogu tago qori lagu qabto oromaduna ay sidaas samayso iyo dadkan waraad 9 milyan oo desperate oo meel ay ku noolaadaan la ayaa kugu soo wajahan adiguna waxaad rabtaa maanta dhan inaad iiga sheekayso reer hebel baan iska celinayna iyo dhul baa layga qaatay warniga Soomaaliga dhulkaaga hadduu qaato ahsan eedadiis buu qabaa adeerkaa buu qabaa waa isqabtaan kulli waa isqabtaan walaalo iyo ilmo adeer baa wada jirin ahsankaas laakiin nin Tigray oo 5 kilomitir ka yimid adeer kaniisada hadda ha ku dhiso adiguna inaad raali ku noqoto markaas anigii baad igu soo jeedaa anigii baad rabtaa inaad tiraad reer fulaan iyo nahay xaq war adeer no waqtigan waxa la soo gaaray kulligeenba xilligii aan samaysan lahayn mar haddaan weynay dawlad mar haddaan weynay baarlamaan mar haddii qof alla qofkii qori qaataba lagu shaabadaynay waa shabaab iyo waa argagixiso waxaas inta dhagaha la iska tiro loo istaago waddanka sidii loo difaaci lahaa nin walbo marka reerkiinu dagaalamayaba ilaahay baan idinku dhaarshay qoryaha waad gadan taqaanaan $200 iyo $500 baad ka bixisaan akhyaalku iska warqabna war waddanka dartiis u qaado qoriga iska dhaaf waxaan reer fulaankan iyo waxaan reer fulaan ilaahay baa ku baday waa nin Soomaali oo muslim walaalka wallahi inuu san meelka aadin saasa ilaahay yawm saa'atu alqiyaamah saasa darisin waarisa walaalna u aanisa maxaa yeelay ilaahay baa DNA giina iyo walaal idinka dhigay dhinac kasta walaalayaal marka waa dheereeyay waan ka xumahay يعني مركان حالته ماشي مريسا معها مال يعني سهلا وحويان بقولك كن أي وجهي هور الجوامي إن دول كلا سوق جليو قارب بدن بقى وحيدي دونا حجابه داتا ذا كيان هذا من بقى ماله يقول الدودة شيء عجيب وغير هذيك الصومالي يقف هيان كعجب ولله بقى إنه كل شيء قف صومالي وضمير له وواحد حسوا أساس ويتيني وغير هذيك صومالي يقف هيان كعجب جواب سهل زي وحنا عروض إلهي يكبره يكون إلهي كبره يعني هذا دفاع وشي قلب كنا وشي دفاع يا مكوري يكون كلا إلى مدى الصومالي ولا لا المسلمين تعود عليه إلا واحد كلام كوكر عيامل ويقول لا يا بيها بنا أريما صومالي كهدو بالله يا بيها نك هلكا سي أمدي مريسا ولا لا المركب وحنو بهنا this time ما ملكا دون تكوه صنورو يمشي جو وحلو بها vigilance that is أبابل أو دلنا يراه كودقات والدين عيابين دونا شباب باتين أرجع حسك على اللي يحكي جرمال هذا يقول كذا هذا أورمدا كعيشنا يتجرينا قاعدة قريقة ميل على ماشى تاجن تيسا حدث واحد قبصر كتنا قبصه هديك كله واحد أوجاته tomorrow على قدون تأيدوا لي هين هبل بنوجو يا نوجو عنا إن لا قبصه وركاسي كونا على الدرا ما إذا كان نوجو عنا ما هذا يديكوا كلا جو إلهي هذا يديكوا أحسا إمام دونا وأنا أركض دونتا مركا هذا ولا إسمشل ولا يرى الله الله وحال سوق جاري اللي هذا يفعل وحن عن فعل أبدل لهم قبل كستنا عناقا إسكالي سومالي بانا لدعا لبا بقلال كنبا إلهي ماشي نقو بيري ميل أغما سقنا إن شاء الله والاسكو دايد من دابيو نيو وول أوردر كان هذا لير حدودها على بابيو عند سوا لغو آمية نينكا وسيرك الرماها دي بدا إيتوبيا شرقدومية كاها سايد ميتين كان أساقها وتي وراقها ديبي وصوهر ديجاي بارلين شركي إنو خيبسي ولا يعني حقان دكي يجي 19 مليون واحد حقان جايه حيبا عجيب غريب كا Soomaaliya aan la yaabay oo kale oo idinkuna la yaabteen waxa kamid wasiirka arrimaha dhaqaalaha iyo something ayaa wuxuu yimid magaalada Hargeysa meeshaas wuxuu ka leeyahay Ethiopia waxay samaysanaysaa fleet of fishing fleet yani maraakiib fleet group maraakiiba oo fishing oo kalluumaysi ah nin geesi su'aal weydiiyo oo marka badda aad ka kalluumaysanaysaan iyo maraakiibtan hoos garaynaysa dekada hoos garaynaysa xagee bay ku taalaa
وحير وضما أنا نو صاحبنا هاي كوبريشن أنا قد حيو أيام ما ركتي أرنتاس إسلامنا waxa uu saas u leeyahay mataqaana waa qolada maamulkaane wada hadalka maamulka meesha sheegtay iyo qaar aan damiir balahayno magaaladoodii iyo magaalooyinkoodii baarlamaankoodii baa waxa haya gambood wax la dhaho laga tumaya habeenkii oo ugu xusay Ethiopia kalandarkeedii nidaamka noocaas way isku halaynay maaha shacabka soo way ogyahay shacabkan Soomaaliyeed ee waqooyiga degan ama Puntland degan ama koonfurta Soomaaliya degan ama Kismaayo marna inaanay ogolaanayno last drop dhiigooda ay hore doonaan uu ogyahay لكن كون وماشي كان صدي ورب انتو خلاص كتورة وخلاص كان صدي أمحار كواس وسكوها لينا ولا لي الوحياة بهاس وحياة بدن بان أغنى إن شاء الله وسوكو بيا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته